walaal waa mahadsan tahay arinta ku saabsan gaboodfalka ka dhacay xaafadda Tawfiiq waa arin aad u xanuun badan waa arin gaboodfalku ah waa arin la xiriirta arinta haybsooca oo dadka Soomaaliyeed oo damiir kale si gaar ah u taabanaysa golaha shacabka oo aan anigu xubin ka ahay shalay hadal jeedinta waa lagu soo qaaday laba xildhibaan oo aan saaxiib nahay ayaa arintaas si fiican uga hadlay guud ahaanna goluhu arintaa runtii waa la qayrooday waana arrin u baahan in si degdeg ah wax looga qabto cadaaladana la siiyo dadkii lagu xadgudbay dadkii gaboodfalka geystana arinta cadaaladda la horkeeno sida ugu dhaqsiyaa badan hadal jeedintii baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka ee shalay maxaa lagu soo gabagabeeyo talooyin ama ficilo wax la taaban karo way soo saareen ma jirta waxaa lagu soo gabagabeeyey guddiyo in loo saaray arrintii guddiyada ku shaqada leh arrintaana ay golaha shacabka hor keenaan qaraar guud ee arrinta khaaska ah ee dhacdayna la xiriirta guud ahaanna arrimaha haybsooca oo dadka Soomaaliyeed taariikh ahaanna dhib weyn ku soo hayay qarniyo ka badan walaalnimadooda iyo midnimadoodaba halis ku ah in arrinta goluhu uu qaraar ka soo saaro arrinta mucayinka ah xanuunka badan walaalka Soomaaliyeed lagu waxyeeleynaya dabagalkeeda hay'adaha ku shaqada leh in ayadana guddiyada ku shaqada leh inay tala ka soo jeediyaan saacadii la soo dhaafay baraha bulshada waxaa aad loo hadalhayay warar sheegaya inaad adigu damacsan tahay ama ay isku daydayba inaad damaanad ku sii dayso haweeney u xiran falkan iga waran falkaas arrintaas waa been abuur waa arrin dad siyaasiyiin rabaan inay magacayga ku waxyeeleeyaan waa arrin xaqiiqda ka fog waa arrin anigii oo hadda kula hadlaya aan leeyahay waa been aan sal iyo raad lahayn damiirkayguna ima siinayo in qofka gaboodfalka noocaasa geystay inaan cadaaladda hareer marsiiyo damiirkayga ima siinayo waana arrin dad siyaasiyiin rabaan inay si gaar ah oo shakhsiya ay magacayga iyo sumcadeydaba inay ku waxyeelayaan baarlamaanka Soomaaliya uu badan yahay golaha shacabka aad ka tirsan tahay waa 270 iyo xoogaa 75 sida saxda laakiin laga yaabo inay tira ka dhimanta lama sheegin oo lama dhihin Xuseen Iidow ayaa laga soo qaato ayaga lama sheegin waay adiga magacaaga loo soo xus waxaa jira dhaqan haddii damaanad laga hadlo iyo qof la soo xiray dadku iyo saxaafadda iyo shacabkuba ay tuhmi karaan dadka reer wadaag ay yihiin taasoo runtii aanba xaqiiq ahayn mararka qaarkood qofkaasi inuu aniga yahay ama xildhibaan kale yahay aan la hubin arrintu waxay ka bilaabatay guddoomiyaha golaha shacabka ayaa arrintaa ka hadlay oo arrinta guddoomiyaha gobolka guddoomiyuhu wuxuu sheegay booliisku inay sheegeen in dad xildhibaano ah damaanad ku raadinayeen qofka dhibkaa geystay arrintaa waa abuurtay mala ah xildhibaanada reerka qofka tacadiga geystay ayuu noqon karaa ayay abuuri kartaa guddoomiyuhu arrintaa wuu ka hadlay 275 xildhibaan iyo 54 xildhibaan oo kale oo aqalka sare qofka kaliya oo guddoomiyuhu magaciisa uu beri yeelay oo uu si cad u sheegay inaanan anigu ahayn qofka damaanadda u raadinayo qofka gaboodfalka geystay waa aniga laakiin aniga waxaan isleeyahay guddoomiyaha iyo booliiskaba waxaa la gudboon in shacabka Soomaaliyeed ay u sheegaan ay hor keenaan qofka rabay inuu gaboodfalka noocaasa qofka geystay inuu cadaaladda hareer marsiiyo xildhibaanada Soomaaliyeed oo xushmad lana aan magacooda lagu dhaawicin sumcadooda lagu dhaawicin qofka dhibkaa geystay oo arrintaa ku lug lahaa damaanadda raadinayay booliiska oo arrintii baaraya iyo guddoomiyaha oo ah ninka saxaafadda hor keenay inay inta ay dadka Soomaaliyeed ku jahawareeri lahaayeen xildhibaankee 330 xildhibaan ka mid ah oo arrintaa damaanad u raadiyay waxaan qabaa inay xildhibaanada Soomaaliyeed magacooda ayagoo u danaynaya iyo sumcadooda inay qofka magaciisa sheegaan gudoomiyaha markii hore magac xildhibaan ma sheegin markii dambena wuxuu yiri Xuseen Iidow maaha ma adiga ka codsaday inuu yiraahdo Xuseen ma aha dadkan tilmaamay mise isaga gartay
oo ay ku dhalateen oo magacaaga dabcan sida hadayba adigu aad sheegtay arinta baraha bulshada iyo saxaafadda ayaa aniga iyadoo magacayga iyo sumcaddeyda la rabay in lagu si siyaasadaysan loogu dhaawaco markii arintaas soo baxday bay dabcan guddoomiyaha la noqotay inuu arintaas aniga shakhsiyan inuu aan noqdo xildhibaanka keliya oo aan ahayn xildhibaanka lagu tuhmi karo aniguna hortaada ayaan hadda ka caddaynaya shacabka soomaaliyeed u caddaynaya aniga oo ah xildhibaan xuseen iidow ma ihi qofka raba inuu dhibanaha cadaaladda tuudsiiyo ma ihi qofka gabood inuu siiyo rabo qofka dhibaatada intaa la egeystay ma ihi qofka damiirkiisu siinaayo inuu arintaas aan cadaaladda la horkeenin taa bedelkeeda waxaan qabaa arintaana inaynan ahayn arin damaanad iyo la samayn karo arrin suuragala inayna ahayn waa arrin bahdil ku ah qoyska waa arrin bahdil ku ah qaraabada waa arrin bahdil ku ah shacabka soomaaliyeed oo walaalaha ah waa arrin xiriir la leh sida dadka soomaaliyeed mustaqbalka ay u wada noolaan doonaan waaya xildhibaan soomaaliyeed tahay soomaaliyeed matasha haddana dadku deegaan doorashay leeyihiin dadaday usii dhow yihiin maadaama adiga lagu yiri xuseen iidow waa waxaan raadinaya inuu damaanad ku sii daayo ma isleedahay xubno kale oo golaha shacabka ama aqalka sare ah oo kaaga dhow qoyska dhibka geysta ayaa jira mise adiga ugu dhow hor dadka soomaaliyeed oo dhan aan xildhibaano u nahay dadka soomaaliyeedna u dhow nahay waa run deegaanada baa la kala degan yahay dadka soomaaliyeed oo walaalaha ah baan matelnaa arinta malada keentay in xildhibaano qofka dhibka geysta ku reer ah ama xildhibaanada soomaaliyeed oo 330 lagu tuhmay qof ka mid inuu ka shaqaynayay aniga waxaa ila quman inta la dhihi lahaa hebel ayaa lagu tuhmay iyo hebel baa lagu tuhmay anigu anaa isbari yeelaya miihi xildhibaanka damaanadda u raadinayo qofkaas waxaan qabaa guddoomiyuhuna arintaa inuu caddeeyo ula sii dhowaado hadda wuxuu sheegay inuuna xuseen iidow ahayn laakiin waxaan qabaa inuu ula sii dhowaado booliiska oo ah arinta dadka iyo CID da oo dadka baarista gacanta ku hayana inay arintaa aynan gabood siin oo aysan siinin meel qofkaasi ku gambado qofka xildhibaanka ah damiirkiisu siiyey inuu cadaaladda aan la horkeenin qofka gaboodfalka walaalkiis u geystay qof walaalkiisa qofka sidaa ula dhaqmay qofkan waxaan qabaa inaan xurmad ma mudna inaan xurmad la siin waxaan qabaa shacabka soomaaliyeed magaciisa in la horkeeno waxaan qabaa taasna waxay magac iyo sumcad u yeelaysaa xildhibaanada intooda kale inta la tuhmi lahaa tuhunka waxaa meesha ka saari kara hay-adaha baarista oo booliiska ugu horeeya iyo CID da iyo guddoomiyaha oo arrinta sheegay waxaan codsanayaa shakhsiyan inta walaalahay kale sida aniga lii tuhmay loo tuhmi lahaa oo xildhibaanba maalin loo tuhmi lahaa maalin la dhihi lahaa waa hebel maalin waa heblaayo qofka damaanadda raadiyey laftirkiisa in la sheego waaya marka saameyn ma kugu yeelata kiiskan adiga oo baraha bulshada la hadlayo cid madax ah oo kula soo xiriirto wax kaa weydiisay shacabka see u arkaan dhibaatada adiga wax dhibaato ma kaa soo gal qofka siyaasiga ah xogasho waa la kulmayaa eedeyn aan raad lahayn iyo been abuur waa joogto si joogto ah ayay dadka siyaasiyiinta ah oo xildhibaanadu gaar ahaan arintaa ula kulmaan laakiin shakhsiyan arinta nooca ay tahay arintu maadaama ay la xiriirto qof walaala la gubay haybsooc si gaar ah ii taabatay xogashada kale oo dadka siyaasiyiinta ay isu geystaan waa iiga duwan tahay waana sababta keentay inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo inaanan aniga oo ah xildhibaan xuseen iidow ahayn qofka raba in cadaaladda la hareer marsiiyo qofka gaboodfalka noocaas geystay waxaan qabaa oo hay-adaha ay khusayso ee cadaaladda garsoorku waa madax bannaan yahay hay-adaha booliiska ku shaqada leh xeer ilaalinta waxaan soo jeedinayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay cadaaladda u horkeenaan qofka falka wuxuusnimada ah noocaasa walaalkiis u geystay arintaana damiirka dadka soomaaliyeed ma ogola dadka xildhibaanada aan saaxiibada nahay ee arintaanu ay si guud iyo si gaaraba u taabanaysa damiirkooda ma ogola arintaani waxay taabanaysaa walaalnimada iyo wadajirka dadka soomaaliyeed waxaan qabaa si wadajir ah in loo wajaho cidda arintaa ku ceebeysan oo raadinayay inuu damaanad u raadiyo qofkaana dadka soomaaliyeed magacooda la horkeeno cidda aan ku shaqo lahayna magaciisa la beriya su-aasha ugu dambeyso
waxaa ku soo celcelisay waad dhahday falkan waxaa ka dambeeya dad siyaasiyiin ah oo magacayga iyo sumcaddiida dhaawacaya yaa weeye dadkaas siyaasiyiinta ah sharaftaadii iyo magacaagii dhaawaca intaa leeg u geysanaya oo weeraraya yaa wey dabcan shakhsiyan anigu waa garan karaa oo waktiga iyo xogagaal gaar ahaan u ahay laakiin waxaa ila quman inaan aniga laftirkeygu xeeriyo wax badan dad siyaasiyiinahoo aan siyaabo kala duwan u kala afkaar duwan oon anigu garanayo intaan aniga laftirkeygu magaca iyo maamuuska qofkaas leeyahay aan si tuhun ah ku waxyeelayn lahaa waxaa ila quman inaan arrintaas xogagaal gaar ahaan shakhsiyan u ahay laakiin arrintaa ma rabo inaan hadda halkan aan ku falaaqayno ilama qumana laakiin xogagaal aan u ahay aad u mahadsantaha mudan xildhibaan ku mahadcelinayna